السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أوفر صنع شركتها نسيو أديك إسجارسينتا قار عن موبيلات بدنا وحي أديك سدان لبضان كلمة 3G iyo 4G marka ma taqaana wax laga waxaan rabnaa maanta barnaamijkan qaybtaan inaan ku fahamno labadan kelimo ee kelimada kale oo ziyaada ah waxay kala yihiin iyo farqiga u dhaxeeya marka koowaad kelimada 3G waxay u taagan tahay taqniyadaha jiilka saddexaad ee wireless communication ama isgaarsiinta aan fiilada lahayn sida mobilada gacanta aan ku qaadano ilaan fiilo ma lahan sax sug weli ma fahmin ayaan filaa weli su'aasha isweydiinayso ayaa ah maxaa waaye jiil ama generation ama fac isud anaa ku waadixinayo wax laga wado marka koowaad fiiri mobilka wuxuu leeyahay simikar ama laf sax marka laftaasi taqniyada ay isticmaasho waxaa la dhahaa GSM waxaana laga soo gaabiyey Global System Mobile marka GSM kaasi ayaa wuxuu soo maray waqtiyo kala duwan midaas ayaana kaliftay waqti walba in la dhaho jiil cusub magac cusubna loo bixiyo marka waqtigaas wuxuu ka soo bilowdaa 1981 oo ahaa jiilka koowaad ama GSM wixii ka horeeyay waqtigaasna waxaa la dhahay 0G ama eber G marka 1981 waxay ahayd marka ugu horeysay ee la isticmaalay telefoonada gacanta aan fiilada lahayn ama korontada aan lahayn ee ku shaqeeya simkarka ama lafta kaliya telefoonkaasi kaliya waa lagu hadal jiray wax qoraal ama SMS ma lahayn haddii ku dhaw SMS ma lahayn macnaha internet ma lahayn SMS-kii oo qoraalada fariimaha la isku dirdiray ay u balaayeen internet ma lahayn kadib 1992 waxaa soo baxay taqniyad cusub oo iyadana loogu magac daray 2G ama GPRS oo laga soo gaabay General Packet Radio Service jiilkani wuxuu soo ziyaadiyay in qoraal ahaan SMS lagu wada hadlo asigoo noqday xawaaraha uu ku kala gudbinayo xogta ku dhawaad 65 ilaa 144 KB ama kilobyte haye 2G waa la horumariyay kadib waxaa soo baxay 2.75G midkaan xawaaraha ay ku qaadanayso xogta inuu ku kala gudbiyo waxay noqonay 180 KB ama kilobyte markaas kadib 2001 waxaa soo baxay 3G oo asna noqday xawaaraha uu ku kala gudbinayo xogta 400 ilaa 700 KB ama kilobyte markaas kadib hadan 3G ayaa la horumariyay waxaana soo baxay nusqad cusub oo iyada loogu magac daray 3.5G ama 3G plus midaan xawaaraha ay xogta ama macluumaadka ku kala gudbinaysa ayaa noqotay 7.2 MB marka hada saafilay dad ila socdo waxay ku wareerayaan KB kilobyte ama MB megabyte maxaa ka wada hadaa rabtid inaad si ogaatid waxaan ka wado ku laabo qaybta hore ee barnaamijkan ama hadda waxaan ku dhigayaa description-ka oo channel-kan ku dhigaa hoos ayaan ku dhigaa meesha ka fiir xalqadii hore ee ku mooday ama qaybta hore ee ku mooday marka 7.2 MB midaas waa midii noo suurtagelisay internetka inaan kala degno dukumeentiyada iyo aflaamta oo markii hore aadan awoodi karin inaad kala degto waana jiilka suurtageliyay in internetka aan ku wada xariirno anagoo mobilada gacanta wadano iyo sidoo kale aan ku wada xiriirno si muuqaalo ah aan isaga aadno video call ay soo wacno markaas kadib 2011 waxaa soo baxay jiil cusub oo iyadana la dhaho 4G asiga jiilkan xawaarihiisa uu xogta ku kala gudbinay waxay tahay halkii ilbiriqsi ama second 100 MB ilaa 1 GB macnaha waxaa fiirsan kartaa aflaamta ku jirto YouTube iyo tayadeeda ay tahay HD asigoon aan kala gogo'eenin marka waxaa xusub mudan in taqniyadani muran badan ay ka taagan tahay magacaabideeda iyadoona shirkadaha qaar ay u adeegsadaan qaab ganacsi magacaas ay u sheegtaan iyagoona laga helaynin adeega dhabta ah ay waajib tahay inay kugu siiyaan hadaa isticmaashid jiilkani sidoo kale waxaa laga sugayaa dhamaadka 2020 inay soo baxdo jiilka 5G hadda saafilayo markaan kadib 3G iyo 4G wax lagu wado waa ila fahamtay hadaa wax yar macluumaad waa rajaynaya inaad ka heshay marka sidee kula tahay hadaa maanta barnaamijkan meesha ku akeeno halkan ayaa ugu baxay balanteena insha Allah waa qayb cusub oo barnaamijkan ku saabsan